soo dhawaada asxaabta. maanta waxaan qaadanaynaa basic excel formulas aan ka qaadan doono ilaa iyo 9 qaybood oo ay ka mid yihiin isku darka, kala jarka, isku qaybinta iyo ku dhufashada. waa qaacidooyinka asaasiga ah ee markii la joogo excelka isticmaalkiisa uu badan yahay. cashirkani wuxuu bilow u yahay cashirada soo socdo ee aan uga hadli doono cashiro ku saabsan excelka. maanta waxaan ku bilaabeynaa sidee laba tiro la iskugu daraa, isku darka laba tirood. marka waxaan fiirinaynaa qaybta saamka oo isku darka. waxaan isku daraynaa laba tiro, laba iyo waxaan rabnaa inaan isku darno 4. seeliskan faaruqa imaana kadib waxaan leeyahay calaamadda equal. waxaa jiro qaab badan oo la iskugu daro ilaa iyo 4 qaybood camala. marka qaabka koowaad aan fiirino maxaan subinaynaa, waxaan qoranaynaa sam, calaamadda sam. markay meeshaas noogu soo baxdo double click aan leenahay, kadib aan labadaana isku soo doorano, highlight soo saaranaynaa, kadib waxaan subinaynaa enter aan leenahay. 4 laba haddii lagu daro waxay noqonay 6. qaabka kale see noqonay waxay tahay auto sam meeshay noogu qoran tahay double click aan soo leenahay. double click markaan dhahno automatically asaa noo doorayo labada tiro aan rabna inaan isku darno, kadib waxaan leenahay enter. waa 4 laba ku dar waa 6. waddo kale noo samayn kartaa. wadada kale waxay tahay calaamadda equal waa noo qoran tahay. waxaan dhahaynaa tirada laba aan soo qaadano, kadib calaamadda balaasaa qoranaynaa. aan dhahna haddana 4tan, kadib enter 6. saas waxaan ku marnay 4 qaybood oo aan iskugu dari karno labada tirood. isku dar waan kasoo baxnay. aan imaano marka qaybta subtractiga ama kala jarka. kala jarka asaga hal wadda u maraynaa. halka wadda waxay tahay calaamadda waxaan rabnaa inaan kala jarno 4 iyo waxaan kala jarnaynaa 4 iyo 2. waxaan subinaynaa equal aan dhahno. equal markaan dhahno waxaan subinaynaa tiradana soo qaadanaynaa, tirada 4 waa qori kartaa ama 4 waa soo dooran kartaa. kadib markaan 4 soo doorano calaamadda minuskaan taabanaynaa. minus markaan taabano tirada labaad oo soo doorano, haddana tirada labaad waa 2, kadib enter. waxaa noo soo baxday 2. jawaabtu waxay tahay 2. ku dar iyo ka jar saasaan kusoo marnay. maxaa noo dhiman qaybta multivalka. laba tiro rabnaa inaan isku dhufano. sidee iskugu dhufanaynaa? laba tiro isku dhufano waxay tahay 5. haddii aan ku dhufano 5 waxay noqonaya 25. aan iska hubino 25. calaamadda equal aan soo qabano. equal markaa soo doorano 5 aan soo dooranaynaa. 5 markaa soo doorano aan dhahno markaa shift 8 calaamadda ku dhufo waaye. kadib haddana maxaa ku dhufanaynaa 5, kadib waxaan leenahay enter. 5 ku dhufo 25 waa saa hore soo sheegnay. marka ku dhufo iyo ka jar iyo sam saasaan kusoo marnay isku darka. aan imaana marka qaybta kala qaybinta. laba tiro la kala qaybinaa. marka hore tirada koowaad aan weyneyno. tirada koowaad tiro weyn ha ahaato, laakiin tiro qaybsamaysan ha ahaato. waxaa yeele waxay noqonaysaa 10 iyo 2 leenahay. tiro fududaa taqaanaa. okay 8 aan leenahay. 8 aan waxaan u qaybinaynaa 4. intaan ka jawaabin waa iska garanaya umaleynaa. 8 haddii 4 loo qaybiyo meeqay noqonaya? waa 2. aan qaadano marka equal aan leenahay. equal markaan leeno 8 aan soo doorano. 8 waa soo dooranay, kadib maxaan leenahay calaamadda qaybta, kadib waxaan dooranaynaa 4 markaan doorano enter aan leenahay. waxaa noo soo baxay 2. waa jawaabta horeysa ugu soo sheegnay. markaan waxaa imaanaynaa qaybta averageka. average wax kale maaha. average waxay noo sheegaysaa isku dardarka tiradan dhan. waxaan isku dardarsanaynaa tirooyinkan dhan, kadibna inta tiro ay yihiin oo ay ka kooban yihiin ayaan u qaybinaynaa. hadda tiradan meeqo god waaye? 1 2 3 4 god. intana 1 2 3 4 3 ku dhufo 12 ka kooban yihiin.
waa tiri kartaa boos dhaho soo tiri 6 4 2 4 2 2 5 tirooyinka dhan soo tiri caadi u soo tiri ha isku dardarin 12 noqonay haddii aad isku dardartana tiro badan ay noqonay kadib 12 qaybi waxaa ku soo baxaya calaamada average-ka marka aniga waxaan leenahay equal aan leenahay kadibna average caadi u qornaynaa average meeshaan noogu soo qormay waataan u qorayso double click dheh kadibna soo dooro intaa dhan soo dooro kadib markaa soo doorto waxaa leedahay enter waxaa noo soo baxay 5.75 calculator-ka ku fiiri kartaa calculator-ka ku fiiri tirooyinkan dhan isku soo dardar kadib intay yihiin u qaybi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay average-na saasaa ku soo baxnay waxaa imaanaynaa count iyo count A maxay kala duwan yihiin mid A raacsan midna A ma raacsano count A ayada maxay noqonay count A ayada waxay xisaabisaa oo kaliya saleska uu ku qoran yahay numberska iyo taariikhaha ayada wax shuqul ah kuma laha ama wax sales ah ma xisaabiso oo ay ku jiraan tiro xaraf ama magac sales ku qoran yahay sales waxa ka wada godadkan dhan haddii maanta meeshan ku qoran yahay asset ama xarafka E ayada waxaas dhan ma xisaabinayso saleskan dhan ma xisaabinayso only waxay kaliya xisaabinaysaa tirooyinkan iyo haddii meeshan ku jiro taariikh oo kale 2/4/2021 kale hadday tahay way xisaabinay countiga waa arkayna marka maxaa dhahnay ayada wax shuqul kuma laho wax xaraf ah iyo meel banaanne ma xisaabiso kadib waa imaana marka sidee u xisaabinaa kuwan haddii waxaan soo marnay average-ka markaa ka shaqaynaynay waxaa dhahnay intaan dhan waa 12 seeg soo saaraynayna countiga noo xisaabinayo countiga aan xisaabino maxaa leenahay marka equal markaa dhahna waxaa leenahay count kore noogu taallaa iyadii count A iyo countigaba countigaan daarno double click aan leenahay kadib intaan highlight noo soo geliyay kadib waxaa leenahay enter muxuu noqday 12 haddii aan meeshaan hal xaraf ku daro hal tiro oo number haddaa ku daro 2 meeshaan waa isbedelay 12dan waa isbedelay fiirso indhahada ku arag enter aan leeyahay aan ku darnaso maxay noqotay 13 xaraf kale tiro kale aan ku darno 4 maxay noqotay 14 haddii aan meeshaan ku daro xaraf oo D asaga wax shuqul kuma laha ma xisaabinayo wax shuqul ah kuma laha haddii aan meeshaan gelino taariikh oo kale 2/2/2000 waxaan ka dhiganaynaa 2/2 saxna 2/2/2021 haddaa dhahno isbeddel ku imaanaa meeshaan 14 maxay noqonay 15 waa kasa wixii taariikha iyo wixii numberska bis ayaa xisaabinaya qaybta markii la joogo county meeshaan hadda xaraf dhiga noogu jiro wax dhiga xisaabisay ma laha okay balankigan meelahan faaruqaane ma xisaabinayso county A ay imaano qaybta county A maanta waxay xisaabinaysaa oo keliya dhammaan county A sidoo kale waxay xisaabinaysaa iyadana inta uu xisaabiyey county oo hadda aan soo marnay oo ahaa numbers iyo dates oo taariikh ah oo lagu daray xaraf ama hal xaraf ha ahaato ama magac asad oo kale ha ahaato ama magac caasho oo kale ha ahaato marka magac ama xaraf ayuu xisaabinayaa oo lagu daray inta uu xisaabiyey count aan aragno marka countiga marno waxaan leenahay equal count A meeshaas nagu soo baxay ujeeda double click aan leenahay kadibna aan soo jiidno intaan dhan hadda intaan meeqa ka rabnaa intaan waxaan ka rabnaa 16 sabab meeshaan waxaan soo dhahnay county markaan xisaabinayna 15
15 aan dhahnay laakiin dhiya ku soo darnay dhiidaas muusan xisaabin intaan marka waxay noqotay 15 marka maxaa yeelay column-ka ma ku koobay hadda 1 2 3 4 column-kaana 1 2 3 row-gaana 1 2 3 4 hadii lagu dhufto maxay noqonay 16 marka meeshan waxaa noqon 15 ilaa waxaa ka maqan xaraf d-na county ma xisaabiyo hadda marka county a joognaa inuu noogu daraa rabnaa marka waxay noqonay 16 inta leenahay marka waxay noqotay 16 aan ku soo darna marka asset inta leenahay waxaan suubinaynaa qaybta rowiska aan keenno ilaa iyo asset agtiisa 17 waa kasaa 17 ayaa soo baxday aan ku darno hadana asli waxay noqotay 18 marka county a waxaa dhahnay dhammaan waxyaabaha xarafka iyo magacyada iyo taariikhaha iyo numberska wuu xisaabinayaa halka county kaligeedna uu xisaabinayo numberska iyo wuxuu xisaabinayo kaliya numberska iyo taariikhaha labadooda waxay ka siman yihiin labadooda hal xab ay ka siman yihiin ma xisaabiyaan blank cells meelaha faariq oo kale meelahan kale oo wax ku qorneen qaybahaas oo kale ma xisaabiyaan okay imaana marka minimize iyo maximize waa iska garanaysaan intaan oo numberka ugu yar intaan leenahay intaan meeqa ugu yar soo xisaabi 2 4 6 4 2 2 waxaa noogu yar numberka 2 meesha waxaan ka rabnaa 2 waxaa leenahay equal marka dhahno minimize aan qorno minimize waa kaasa double click aan leenahay kadibna aan soo doorano ilaa iyo qaybtan kadib waxaan leenahay enter waxaa noogu yar 2 waa hore usoo sheegnay maximize imaano maximize waxaa waaye yaa noogu weyn numberska noogu weyn numberskan intaan numbers maxaa noogu weyn 8 ujeedaa number kale yaa ujeedaa 25 ujeedaa okay waxaa leenahay maximize okay equal kilo isug equal maximize double click aan leenahay kadib intaan soo doorano yaa noogu weyn dhahnay 25 okay maxaa noqday 25 intaas waxaan ku soo marnay basic excel formula oo aan ka qaadanay 9 qaybood saan jeclahay waa 1 2 3 4 5 6 7 9 waa 9kaas wuxuu yahay waa 9ka qayb 9ka qaacido asaasiga lagu isticmaal badan yahay marka la joogo qaybta excelka cashirkan wuxuu noo ahaan doonaa cashir hordhac u ah cashirada soo socda marka waxaan leenahay la socosho wanaagsan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan subscribe dheh like-tan hanaga hilmaamay si ay noogu noqoto dhiirigelin anagana aan usoo badino cashiradeena mahadsanid